meherad casri ah oo nooceedu cusub yahay ayaa laga hirgeliyay gudaha magaalada Hargeysa. Meheradan oo ay yaalaan dawooyin Yurubyaan ah iyo qalab dalka dibadiisa laga keenay oo hor loo doonan jiray dalalka shisheeye. Ayaanu booqanay saaka TV-ga caalamiga GTN waxa uu wareysi la yeeshay mid ka mid ah madaxda shirkadaasi oo la hadlay TV-ga isagoo warbixin ka bixiyay waxyaabaha ay shirkadani dalka keentay. محمد جامع عمر GTN TV مقالة هرقيسة. meherad casri ah oo nooceedu cusub yahay ayaa laga hirgeliyay gudaha magaalada Hargeysa. Meheradan oo ay yaalaan dawooyin Yurubyaan ah iyo qalab dalka dibadiisa laga keenay oo hor loo doonan jiray dalalka shisheeye. Ayaanu booqanay saaka TV-ga caalamiga GTN waxa uu wareysi la yeeshay mid ka mid ah madaxda shirkadaasi oo la hadlay TV-ga isagoo warbixin ka bixiyay waxyaabaha ay shirkadani dalka keentay. qalabkii consumerska, qalabkii disposableska, all caafimaad oo dhameystiran. waxaan kaloo haynaa qalabkii rehabilitation-ka dadka disability-ga curyaamada handicapta ah. waxaan kaloo haynaa qalabkii jidhiska jidhka lagu dhisayay sida qalabkii caloosha lagu tirayay, baruurta oo dhan lagu jiray, fat rejectionskii waanu haynaa. waxaan bulshada Somaliland meel kasta ay joogaan u sheegaynaa inaanu goob aan looga baahnaa dalka aan furnay. goobtaasina ay ku taalo dalka Somaliland Hargeysa siiba Dera Mall kasoo horjeedka shaqaalaha dawladda. waxaan halkan uga jeedinaynaa warbixin dhammaan inta media haya ku xiran aan leenahay page la yiraahdo Baynax Medical Fitness and Apparatus inay booqdaan aan ka codsanay page-kayga noo booqdaan. waxaan kaloo halkan ka sheegaynaa inaan hayno qalab tayo leh oo quality leh. waxaan kaloo haynaa dawadii UK-da Yurubiyaanka ahayd oo dhameystiran oo aan ku iibino qiimo jaban. dawadaas oo dawo tayo leh. waxaan kaloo haynaa qalabkii caafimaadka oo qiimo jaban ah oo aan dadka u danaynano maadaama dadkii bahda caafimaadka ee dadka xanuunsanaya ay yihiin danyar. maadaama aanu halkaa ka eegano aan u danaynano bahda caafimaadka qalab caafimaad oo dhameystiran oo qiimaheedu hooseeyo tayana leh baanu haynaa. waxaan doonaynaa inaanu ka qayb qaadano baahida bulshadeedka iyo sida macnaha loogu baahan yahay qalabkan. waxaan kaloo ka eeganay dhan kasta oo bulshada Somaliland ay jirto maadaama Somaliland iminka dal horumaray oo tallaabsaday uu yahay inaanu keeni doono qalabba fara badan oo noo soo socda. qalabkii caafimaadka oo dhameystiran oo isaguna noo soo socda, qalabadii oo dhameystiran oo hayno iyo qalabbo kale oo dhameystiran oo dalka looga baahan yahay oo baahida bulshada aadna loogu soo celiyo oo lagu weydiiyo aanu keeni doono. shirkadan waa shirkad Baynax Medical Law, waa shirkad ballaaran oo dalka gudihiisa dhammaan qaybo ku leh sida Burco kale halkan oo kale iyo dhammaan qaybaha laamo kale aan leenahay. waxaan ummadda Somaliland u sheegaynaa inay ka soo qayb galaan oo aanay hilmaamin Baynax Medical Fitness. محمد جامع عمر GTN TV مقالة هرقيسة.